السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada saaxiibayaal waa saaxiibkina Balawi. Casharkan waa casharkii 26 ee barashada MS1. Casharkan waxaad ku baranaysaa sida password looga xirto dokumentiga. Dokumentiga marka password lagu xirayo laba ayaa loo kala qaadayaa. Inta aad gudaha u galin iyo marka gudaha u gasho kadib. Labadaas qayb waxaad ku baranaysaa casharkan 26. Casharkan 26 waxaad ku baranaysaa formatting restrict, editing restrict, exceptions, restrict permission with password, protect to open. Afartan qodob waa isleeyihiin hal meel ayaa lagu shaqeynayaa kanna waa goonidiisa. Waxaan ku bilaabaynaa afartan qodob oo is wadato. Hatta halkan sa ujeedadba waxaa noogu qoran qoraal 3 paragraph ayaa noogu qoran. 3 paragraph ayaa rabnaa inaan password ku xirno mid ugu xirno ama laba password ku xirno. Tusaale ahaan halkan ayaan highlight saaray. meeshii highlight aan saaro password lagu xirayo macna control ay qabanaya midkan highlight aan saaraya. waxaan rabaa kan kaliisa ina protect ka dhigay rabaa. waxaan dooranayaa marka review kadibna waa kan restrict editing. halkaas ayaa ku dhufanaysaa qofku sawran yahay review ku dhufo restrict editing. format restrict qorxinta ayaa laga xadidayaa qofka ma qorxi karo halka jeeg saar. editing restrict inuu wax ku dardaro ayaa laga diidayaa. halkaas fiiri read only ayaa dooranaysa kaliya. halkan read only ayaa ku tahay waa akhri kara kaliya wax ma bedeli karo. everyone qof kasto waa inuu wax ku dari karo waxna ka jari karo marka laga reebo kan. halkan saddexaad fiiri start information halkaas yes ayaa leedahay. start protection halkaas ku dhufo kadibna password halkan gasho. password geli 1 2 3 ayaan lahay taabo ku celi mar kale 1 2 3 kadibna okay ayaa leedahay. waa kaas had password ayaa lagu xiray. tusaale ahaan halkan fiiri marka aad ku dhufato qaybtan home ka fiiri waxay dhan waa qarsan yihiin wax ma ku dardari karo. fiiri hadda waxaan qoraan dhaho wax ma ku dari karo. raadkeliga leeyahay dalida raba ina dhaho ma dhahmay kadib mar male waxa dhan shaqeynaya waa xiran tahay. laakiin kan fiiri marka ku dhufto home-kii waxa dhan waa shaqeynaya. haddii aan doorto oo raadkeliga aan dhaho waa kan wax dhan waa shaqeynaya. laakiin kuwan kala fiiri ayagana waa la mid dokumentiga ay raacsan yihiin ma dooran kuwa aad doorantay kaliya ayaa laga tagayaa. haddii aad u baahantahay dokumentiga oo dhanna highlight wada saaraysaa protection kiisa aad ku dhufanaysaa kadibna everyone ta ayaa ka qaadaysa kaliya. tusaale ahaan fiir hadeer stop protection markaan ka qaadayo stop protection ku dhufanayaa password ka qaldaya fiiri 1 2 3 4 ka dhigaya okay dhaha fiiri sauliya waa kana the password is incorrect password ka uu qaldan yahay okay leedahay waa kaas ma shaqeynayo. protection ku dhufo stop protection password ka saxaysa 1 2 3 leedahay protection ka waa la qaadaya. hadda wax walba waa shaqeynaya waa kaas okay. halkan highlight isar control haya halkan highlight isar everyone ka qaad saxda kadib start protection dokumentiga dhan waa markii qoraalada dhan 1 2 3 tab 1 2 3 okay waa kan dokumentiga dhan hadda waxa waay password ayaa ku xiran yahay. marka qaadaysidna stop protection password ka geli 1 2 3 okay hadda waxaan ka baxnay afartan qodob. formatting waa kan mid koowaad waay. editing waa mid labaad. exceptions waa kan. restrict exceptions ka marka hadii dad qaar aad reebaysid halkan ayaa u soo darsanaysa. restrict permission with password waa kan password ka ayaan ku dhufayn. number 5 protection to open waxaa laga hortagayaa protect to open dokumentiga dhan in la furo ayaa laga hortagayaa. had dokumentiga ka baxayna fiiri save leeyahay dokumentiga waa kan double click marka aan ku siiyo dokumentiga hore ayaa ka furmaya waa kan. laakiin waxaan rabaa marka aan double click aan ku siiyo inuu password u weydiiyo ayaan rabaa. file ku dhufanaya kadib waa kan permission halkan ku dhufo kadibna with password ku dhufo encrypted with password halkaas ku dhufo password geli 1 2 3 dhahay okay ku celi mar kale password ka 1
1 2 3 okay dheh hadda waa ujeedaba password is required to open this document waxa uu kaaga baahan yahay password documentigan si loo furo hadda waa ka bixinaa marka fiiri save leeyahay waa ka baxay double click ku siinayaa waa kan documentiga ma furmay password ayuu weydiinayaa passwordkaas gelinayaa 1 2 3 okay leeyahay waa kan waa furmaya markasta marka inaad password geliso ma baahnid file lagu dhufo protection with password kaliya ka tirtiraysaa okay dheh ujeeda hadda anyone can open copy and change this document password ma weydiina hadda markaas oo keenahay waa kaas waxaan filayaa haddeer inaad fahantay 5 qodob waa ku mahadsantahay daawashada oo daawatay muuqaalkan fadlan la wadaaga asxaabtaada mahadsanid